Assalaamu calaykum, sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay xilliyada fasaxa marka la gaaro ardayda badankoodu waxay haayeen kuwa nasta. Gabadha iyadu waxay ka mid ahayd kuwa inta faraha badan la shaqaysta ee wakhtigoogana ka faa'iidaysta. Hooyadeed kalideed ayay ahayd, aadna way u jeclaayeen hooyadeed iyo aabaheed. Hooyada inta faraha badan leh dadka tuulada ayay caawin jirtay, iyaduna aad ayay u jeclayd gabadheed inay raacdo markay hooyadeed dadka soo caawinayso. Marka ay soo noqdaan, hooyadeed waxay weydiin jirtay waxyaabihii fiicnaa ay ku soo aragtay fasaxan tuulada ay tagtay. Gabadha marka dambe hooyadeed waxay ku oran jirtay wax walba fiican halkaa ayuu yaalaa, xitaa hawo fiican ayay leeyihin. Hooyadeed baa ku tiri aad ayaan u jecelahay. Xilligan oo kalena waa xilliyada qabsadaan aroosyada. Islaantuna waxay ahayd mid soo bokata intaay gabadheedu tahay fasax, qof walba ay qaraa'ib yihiin isku dhow yihiin. Dad faraha badanna tuulooyinka waxay qaban jiray xilliyada arooska. Gabadheedu mar walba waxay ku oran jirtay hooyo ka waran hablaaye arooskaygii markan miyiga u tagtay. Waxa markaasii hooyadeed ku oran jirtay aad buu qurux badnaa, sida huruudda loogu duugay imaan malayneen. Qurux ayuu ahaa. Gabadhuna waa ay ku farxi jirtay, laakiin islaantu mar walba waxay oran jirtay waxaan doonaa maalintan adigana ku arkaya adigoo aroosa intaanan dhiman ka hor. Markaasay gabadhuna ku oran jirtay hooyo waa qadar iska aamu, waxaa laga yaabaa hiil fiican inay noo timaado. Maalin ayay gabadhu hooyadeed ka daba timiday, tuuladiina waa ay timiday. Gabdhihii tuulada ayay istaajiyo guuri, maanta aroos ayaa leenahay. Gabadhu waxay ku tiri hooyan alaab u geynayay, maxaad iga rabtid hadalkii dedejiya. Mid ka mid ayaa ku tiri beritoole aniga ay arooskaygii tahay, waanan ku asuumay, hinna iyo wax walbana anaga ayaa kuu marinan noo imo. Gabadhi waxay ku tiri hooyo ayaan ka soo fasax qaadan, hadday ogolaato waan ii iman, haddii kalena sida igu waayeen. Indhihii waayay bay ku yidhaahdeen. Maalintii dambe gabadhii waa isdiyaarisay siday gabdhihii ugu tagto, ugu qurxin karana waa isii qaadatay. Markii diyaargowday hooyadeed bay u timiday ku tiri hooyo waxbaa rabaa inaan kuu sheego. Hooyadeed waxay ku tiri maxaa dhacay? Gabadhaydii halkee darkan u xidhanta waa tegaysa. Markaasay ku tiri hooyo meel ma tegayo, ee gabdhihii tuulada markaan shalay wax kuu keenay ayay wiilaa aroos baan dhigananaa noo imo, aniguna waan ogolaaday. Islaantii baa ku tiri hooyo maad iska joogtid, gabdhahaas uma eka gabdho fiican marka marayna waa kuwayna caaye. Markaasay ku tiri hooyo waa soo eegayaa, waa aan soo noqonayaa, waxaan rabaa inaan soo arko. Dhihii markii dambe hoteel ayay ugu tagtay. Markaasay ku tiri hawsha maad iga soo horbilowday. Markaasay ku yidhaahdeen ha ii soo fadhiiso, yaan huruudda lagaa dhammayna, jirka oo dhan bay dadkooda marsanay waabaan ku ilownay. Gabadhii waayay bay ku tiri sidii bay yadna ku bilowday inay jirkii huruuddii marsato. Markii layska gaaray xilligii la meerayay ayaa talashay, dadkii oo dhan waa ay wada meyreen, way wada nuureen. Daahiyada markii soo gaadhay way ku qosqosleen, waxay ku yidhaahdeen walba meersatid kuma qurux badnaanaysid. Gabadhii maalinta xanaaqay ka soo qaatay. Markii timiday magaaladii waxay bilowday inay raadiso mool uu yaalo dawooyinka kariinka laysku caddeeyo. Gabadhu si walba la hadashay u saraxdayna waa ay diido, waxay ku tiri waa rabaa. Habeenkii markay gaadhay gabadhii kariimkii waa ay soo qaadatay, wejigeedii oo dhanna waa ay ku dabooqday intayna seexan ka hor. Aroortii markii gaadhay gabadhii waa ay soo toostay, suulihii bayna soo gasho waxayna istiri kariimkii iska maydh waa eed bal siduu yahay. Markay iska maydho waxay aragtay wejigeedii oo dhan oo kala tegay, intii ajuutiinka uga kaaday. Gabadhii waa ay qaadisay waxayna tiri hooyo way dilaysaa hadday ogaato in aan kariim marsaday. Dib markii dambe hooyadeed baa la hadasho soo gasho ku tiri heblaay maanta baana toosay, xitaa martiba ay noo joogto rabto inay ku aragto. Gabadhii markii dambe waxay ku tiri hooyo adigu ku dheh heblaay waa ay xanuunsanaysaa. Markii hooyadeed ka tagtayna waa ay ooysay, waa ay kariimkii si xun ayuu galay gabadhii. Markii imaandeen martidii gabadhii aad bay u soo dhaweysay, waxay ku tiri soo fadhiiso, gabadhaydu maanta waan kuugu yeeri lahaa laakiin way xanuunsanaysaa. Gabadhii kale waxay ku tiri may isha kale waan arki doonaa ee iska daa. Sidii baana lagu daayay. Gabadhii iyadoo fikiraysa ayay balakoonka fadhiday, wejigeygii oo dhanna si xun ayuu ahaa. Markii dambe balakoonkii gabadha waxaa ku soo dhacday gabadh baadad leh oo baad ka mida baadadkaygaasina wuu go'an yahay. Gabadhii markay aragtay waa ay yaabtay, iyir kadibna waa ay ku carartay sida uu soo eegto. Ku soo carartay gabadhiina waa ay sii jeesatay sidaan loo arag. Gabadhii kalena way soo hor istaagtay, waxay ku tiri maxaa kugu dhacay, maxaan kuu qabtaa, gurigayga maad u baahantahay inaad soo geshid, han kaa mayray dhiigan faraha badan leh. Gabadhii kale xaabay ku tiri waan ogolahay, waxaanan ka soo dhacay dusha ee gurigaygayga. Gabadhii baa ku tiri haddaba waayay soo soco, kaala kolkayga soo fadhiiso, han kaa mayray dhaawacanne.
dhaawacii gabadhu waxay bilowday in ay u hagaajiso oo waxyaabo u marmariso. Markay dhammaysay oo dhiiggii faraha badnaydna baadkii ka dhammaysay, markii dambe kool ayay ugu dhejisay, waxayna ku tiri, wax kale ma aad u baahan tahay oo aan kuu qabto, iska jiifsana intaan kuu soo samaynaya cunto. Gabadhii baadkeygii maalinba maalinta ka dambaysa waa uu bogsanayay, gabadhii kalena waa ay saaxiibeen, markaasay ku tiri adigu wax ma ku weydiiya, wejiga maxaa sidan kaaga galay? Gabadhii markii dambe waxay ku tiri, kariim ayaa jiray aan marsaday maalin aan xanaaqsanaa, waxaanaad u malaynaya haddii hooyay aragtay inay dili doonto. Dii waxay weydiisay hooyadaa sidee ayay uga badbaada, markaasay ku tiri, kolba wax ayaan ku meeraysadaa, dhowr cishalay may arag wejigayga, nu malaynayaa dad aroos raba inay igu soo noqnoqonayaan guriga maalin walbana waa aan diidaa, waxaan sameeyana ma garanayo. Gabdhaha daraaddoodna waanu xanaaqa wejigaygii sidaasaan iskaga galay. Gabadhii waxay ku tiri waxbaa ooyin, hal waa la keeni doonaa, waanaad hagaagi doontaa. Gabadhii beriyey kadib waa ay bogsatay, sidii horena baadkeygii waa uu dhaamay, baad kale oo ka qurux badan ayaana u soo baxay. Gabadhii markay aragtay ayay ku tiri, iminka waad awooddaa wax walba soo maaha. Markaasay ku tiri orod gudaha waa arag, waa ushayda ii keen, waxaan arkayaa gabadh halkaa maraysa. Tii ayaana i raadinaysa maalinta hore baadkayga soo goysay ee aan islaynay, waxaana rabaa inay jeel ay ka soo baxsataan ku xidhay, orod ii soo qaad usha. Gabadhiina waa u soo qaaday, markii dambena waxay bilaabatay in ay la dagaaltamto, waxayna ku riday shoog, dhulkana waa ay ku soo dhacday. Markii dambena lugta ayay ka xidhay, waxay ku tiri waan ku calinayay oo jeelkaad ka soo baxsateen kugu calinay. Gabadhii kale ayaa ku tiri waa inaan dib ugu noqdo meeshan ka yimiday, aan ilaalinayay, gabadhanna waan calinaya. Gabadhii baa ku tiri oo maad iga tegaysa anigana, intaasoo cisho ayaan saaxiib ahayd. Markaasay ku tiri wax walba oo aad adigu dalbatid waa ogsiinaya, laakiin shaqadaydu halkaa ayay taalaa, waa inaan tago. Gabadhii markii dambe ushii sixirkii ayaa ay ku soo dhaweysay, waxayna u beddeshay sideedii hore, waxayna ku tiri mar walbana isku kalsoono, waayo kalsoonidu waa qaali, dadkanna midab ayay ka sheekaynayaan, kaaga ayaa qurux badan, iina kuwaalidna. Sidii bayna ku tagtay. Hooyadeed maalintii dambe lagu soo noqdo waxay ku tiri, gabadhayda manin daaliye, iminka ayaynu yeeraya maanta, waa inaad arki doontiin. Islaantiina waxay ku tiri kale u yeer, mayada hurida ayay u timid waxay ku tiri, hablaaye meesha ka kac. Dadkii martidii way nagu soo noqnoqonayaan. Hooyo waan imanaya bay ku tiri eyga sii hore waxaa rabaa ina soo diyaargaroobay. Gabadhii dharkii ugu qurux badnaa ayaa ay soo xirtay, wayna soo diyaargarowday. Dadkii martidii markii loo keenay, dadkii martidii oo dhan waa ay ku farxeen, islaantuna waa u yeedhay oo waa ay ka soo horgashay. Islaantii inaka dhashay markay aragtay waa ay faraxda, waxay ku tiri waxaad noo sheegtiin xilligan arooska ka dhigna, waayo gabadhan waa gabadh aad iskugu kalsoon oo midabkaygana haysata, hablahana midabkii ay iska qaadayeen ayaa kadeeday. Shakadeynayna intaa ayaa ku dhammaatay.